bilaabantay maanta waanuna wadi doonnaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee hadhay ay dhammaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobollada qoyi ay soo gabagaboobaan sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dawlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka waxaan u hambalyeeynaa amaanayaana diyaar garowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Somaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyay diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo waxaan amaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska Kaahiya Akademiyada aynu ku qabsanay doorashadii inooguna dhici doonto halkan haddii Ilaahay idamkiisa uu idmo waxaan aad u bogaadinayaa amaanayaana doorka shariifka ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo si hagar la'aan ah noogu gacan siiyay haddaan nahay xildhibaanada Somaliland u tartamaya iyo bahda Somaliland guud ahaanba in doorashadu qabsoonto shalayna aad ogeedeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtanna gacan weyn ka gaaristay had iyo jeerna kala shaqeeya guddiga doorashada Somaliland iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada Somaliland waxaan leeyahay hambalyo guul baa inoo bilaabantay taariikhi ah hal shay baan idin sheegayaa inta aanan xilka qaban ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaan ka shaqayn jiray doorashooyinka wadamo fara badanna aan u tagay goob jooga ahaan 17 sanadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqaynay doorashadu waa tubta kaliya ee lagu kala nabadgeli karayo waa tubta kaliya ee awoodda dawladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo aynu ku dadaalno doorashadeenu inay inoo qabsoonto xilliga inoo hadhay kooban ay ku dhacdo ay naga dhamaato ugu dambeyn dhammaanteenba bishan December ee nagu soo fool leh si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan amaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen run ahaantii booliiska iyo shacweynaha Soomaaliyeed dhamaantood waxa kaloon bogaadinayaa amaanayaana ergadii ii codaysay aniga walaalkay biixiba noo codaysay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed waa u adeegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh doorashada Somaliland waxay ku bilaabantay sida aad isha macallina aad ka marxaatiga tahay si xor ah oo xalaal ah diyaar garow leh tartanku furnaa guddiga doorashooyinka Somaliland iyo federaalkuba ay baahiyeen qof kasta oo musharax ah oo deegaan doorashadan ka soo jeedana uu xor u ahaa inuu u tartamo taas aad ishu ka macallinka ahayd ka marxaati ahayd aaminsannahayna inuu dhacdo waad maasantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inoogu bilaabanto maanta oo taariikhdu tahay 1 bishii 11aad 2021 waxaan aad iyo aad sidoo kale u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hay'adaha ammaanka oo booliisku ugu horeeyo oo sugay amniga doorashada si habsamilana inoogu agaasimay doorashadan waxaan aad iyo aad sidoo kale u bogaadinayaa una hambalyeeynaya labada heer guddiga doorasho oo doorasho runtii hufan inoo agaasimay inoona hirgeliyay waxaan sidoo kale aan ilaawi karin oo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa una mahadnaqayaa ergadii codkooda na siisay ee na dooratay oo nagu aaminay mas'uuliyad culus madaxweynaha baarlamaanka 11aad ee 4 sano ee soo socda waxaa maanta inoo bilaabmay doorashadii golaha shacabka waxaynu ogeyn in doorashadii guriga sare inteedii badnayd soo dhamaatay
waxaan rajaynayaa sidoo kale in deegaanada kalena doorashadu ka bilaabmi doonto si dadka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan madax u adeegta muddaxileedka soo socda si looga baxo xilliga kala guurka ah oo moodo inuu xoogaa daba dheeraado aad iyo aad bay muhiim u tahay in hay'adaha dawladdu adeegooda iyo waajibaadkooda dadka u qabtaan taasina muhiim bay ka dhigaysaa doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo guud ahaanna dalka oo dhan ay ka dhacdo waa idin mahadnaqayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin saxaafaddana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa